kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii kala duwanaa oo xilidan oo kale aad ka daawan jirteen Somali News TV. warbixintan idin haynana waxa uu markaasi ku saabsan tahay dawlad saameyn ku leh Soomaaliya oo qaramada midoobay uga digtay qorshe ay la damacsan tahay ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Ra'iisul Wasaaraha Uganda Dr. Ruhakana Rugunda ayaa qaramada midoobay uga digay qorshe lagu doonayo in lagu dhimo ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in qorshahaasi uu yahay mid wax u dhimaya dadaalada loogu jiro xoojinta ammaanka Soomaaliya iyo kor u qaadista tayada ciidamada Soomaaliya. waxa uu hadalkaasi ka sheegay shirweynihii 73aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. waxa uu noosta ka xariiqay in dhimis walba oo lagu sameeyo ciidamada jooga Soomaaliya ay xagal daacinayso horumarka siyaasadda iyo ammaanka Soomaaliya. Dr. Ruhakana Rugunda ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladda ammaanka ee Soomaaliya ay hagaagtay tan iyo markii ciidamada AMISOM lagu soo daabulay Soomaaliya oo iminka laga joogo 11 sano. mar uu ka hadlayay dagaalka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in haatan 80% Al-Shabaab laga xoreeyay dhulku ay haysteen isla markaasina dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha shisheeye ay ka shaqayn jireen dibadda ay u soo wareegeen magaalada Muqdisho taasi oo xoojinaysa guusha la gaaray. waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya ay tusaale weyn u tahay iskaashiga u dhaxeeya qaramada midoobay iyo midowga Afrika si lagu xaliyo mushkiladaha Afrika. in ka badan 6,000 oo askari oo Ugandese ayaa ku sugan Soomaaliya, waana dalka ugu ballaaran ee ciidamada ugu badan ay Soomaaliya ka joogaan. dalalka kale ee ciidamada ka joogaan Soomaaliya waxa ay kaliyin Djibouti, Ethiopia, Kenya, Burundi iyo Uganda. bishii Agoosto 2016 15 xubneed oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay soo saareen qaraar ku baaqaya in dadaalada ugu badan la geliyo xoojinta ciidanka qaranka Soomaaliya si hanaanka dalkooda ay xilligani muddada dheer xal looga gaaro. intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna warbixinta aynu kaga hadlaynay dawlad saameyn ku leh Soomaaliya oo qaramada midoobay uga digtay qorshe la damacsan yahay ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. haddii aad nagu cusub tahay TV-ga Somali News fadlan ha hilmaamin subscribe-ka si aad ula socotid wararkeena dambe.